warway socotaa way isku bilaabeen waa kala dhex galayna waa isku madheen 15 kilomitir meena lagu yiraahdo kamay ka badanayd ma imsa kilomitir may soo dhawaada daawadayaal war weyn ayaa idinkaga hayaa dagaalka saaka ilaa imika ee ka socda ee jidhe galmadoobe qulaalaha iyo habaas halkaas isku farsaareen reeraha ciisaha iyo samaroonka isla markaana ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac qasaaraha dhimashada ayaa aad u tiro badan iyadoo wararka kala duwan soo baxaya ay sheegayaan reerka ciise uu soo gaaray qasaarihii ugu badnaa ee dhimasho tan iyo markii uu bilowday dagaalkii qadhaadhaha u dhaxeeyay ciisaha iyo samaroonka iyo dhinaca kale ay la sheegayo iyaduna in ciidanka Somaliland ay ka qayb qaateen dagaalka isla markaana ay toos ula dagaalmeen ciidanka Gadabuursaha iyo ciisaha waxaa la sheegayaa hadba wararka soo baxaya waxay sheegayaan in ciidanka Gadabuursa iyo ciisaha qaar kamid ah dagaalamayaasha labada dhinac ay ka yimid dhinaca Itoobiya ay ka soo galeen isla markaana ay wadaan weli weeraro culus ciidanka dawladda Somaliland ayaa ka qayb qaadanaya si toos ah iyagoo waliba muuqaal isaga soo duubay cadeynayso in ciidanka dawladda Somaliland ay qayb ka yihiin dagaalada iyagoona doonaya inay kala qaboojiyaan dhinac kalena sheegaya in ciidanka kuwa Somaliland iyo Gadabuursaha ciidankooda isfarsaareen isla markaana halkaas iyadoo laftirkeedu uu ka dhashay qasaare kala duwan isugu jirta dhimasho iyo dhaawac soo dhawaada daawadayaal intaan u gudgelin faahfaahinta warkan ku soo dhawaada mar kale gunta wararka subscribe saar channelka haddii nagu cusub tahay nagu soo biir like garee muuqaalka share gareyso asxaabtaada si gaarsii si ay u helaan dhacdooyinkii iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladaha deegaanada Somaliland iyo si la mid ah aqoonsigii halkuu ka dambeyn doono waayahay in gudgalno ciidamada dawladda Somaliland ayaa si toos ah maanta ugu qayb qaadanaya ee dagaalada ee saaka ilaa uu gaadhay ilaa iyo galmadoobe qulaanaha iyo habaas halkaas isku farsaareen reeraha ciise iyo samaroonka samarkaana la sheegay inuu ka dhashay qasaare kala duwan isugu jirta dhimasho iyo dhaawac dagaal sababay burbur xoogan samarkaana si la mid ah sababay burbur hantiyadeed isugu jirta iyo si la mid ah bahanti aad u xoogan iyo xoolo oo laga qaxay deegaanadan oo idin soo xusay oo laga qaxay la isaga carray qasaaraha aad u tiro badan dhimashada oo ilaa xadkii loogu talagalay ay dhaaftay ayaa la sheegay in reerka ciisaha ay meedad tiro badan halkaasi kaga dhinteen kadib dagaalkii adka iyagoo dhexmaray wararka waxay sheegayaan in saaka aroortii oo weerarka uu bilaabay reerka ciisaha isla markaana ay ku beegsadeen ciidanka beesha Gadabuurse ay ku sugnaayeen nawaaxiga jidhe halkaasi oo la sheegay in weerar adag ay ku qaadeen jabhadda ciise isla markaana ay ku fuleen weerar culus deetana deegaanada kale ilaa dagaalka uu ka faafay galmadoobe qulaanaha iyo habaas ayuu sii gaaray dagaalka iyadoona la sheegay in tirada dhimashada ay aad u tiro batay isla markaana qasaaraha ay la sheegay inay sii faaftay iyadoona imika ka soo baxaya wararka kala duwan sheegaya in ciidanka Somaliland ay qayb culus ay ka qaateen dagaalkan iyadoo muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada ciidanka Somaliland ay ku muujiyeen inay diyaar u yihiin inay dhaxdhaxaadiyaan dadkan ama bay qaboojiyaan ciidamada dawladda Somaliland ayaa la sheegay in toos ay isku farsaareen ciidanka Gadabuursaha isla markaana dagaal toosan la isku adeegsaday xabado noocyadiisa kala duwan ayaa la sheegay inuu ka dhashay halkaasi qasaare kala duwan isugu jirta dhimasho iyo dhaawacyada dhinacna waa ciidamada Gadabuursaha iyo kuwa ciisaha dhinacna waa ciidanka dawladda Somaliland ayaa qayb ka iyadoo laftirkeedu aysan ogeyn cidda sida dhabta ula dirirayso laakiin sida la sheegay ayuu ciidanka dawladda Somaliland waxay doonayaan sida iyagu muuqaalka bay ku cadeynayaan inay kala qaboojiyaan ee dagaalka u dhaxeeya ciisaha iyo Gadabuursaha isla markaana inay dhaxgalaan dagaalka oo la isla gaaray galmadoobe qulaanaha ilaa iyo habaas ayaa sababay in ciidanka dawladda Somaliland ay meel banaana ka istaagaan kadib markii ay garan waayeen cidda sida tooska xabadda ugu ridayso iyo cidda kaleba iyagoona la sheegay inay ku jahwareereen ee dagaalka ciisaha iyo Gadabuursaha halkaasi oo ka dhashay qasaare aad u tiro badan meedadka ayaa la sheegay in dhulka ay daadsan yihiin fariimo kala duwan oo baraha bulshada la marsiinayay ayaa loogu sheegay reerka ciisaha in meedadkooda tirada badan ay halkaasi ka qaataan dhinaca kale beesha ciise ayaa iyaduna sheegaysay in qasaaraha oo jab xoogan oo soo gaaray reerka Gadabuursaha isla markaana loo baahan yahay in meedadkooda iyagu laftirkooda ay jiitaan isla markaana ay suurtaan wixii halkaasi ka dhacay in iyagu ay ku baabeen dhinaca baraha bulshada marka la eego fariimo kala duwan ayaa la isku dhaafsanayaa oo sheegaysa in dagaalka uu yahay
midka kale uu ku sheeganayo in isaga guushay raacday isla markaana kan kale uu ka xoog batay uuna awood isaga ku soo hartay laakiinse ilaa hadda wax faahfaahin rasmi ah lama hayo maadaama dagaalku uu sii socdo laakiin waxaa la sheegaa in ciidamada jabhadda ciise uu soo gaaray khasaare aad u xoogan iyadoona la sheegay in dad tiro badan ay ka dhinteen ee jabhadda laakiin ay yihiin weli kuwa dagaalamaya isla markaana caloosha u xiran iyadoona la sheegay in galmadoobe habaas qulaanaha weli lagu kala adkaan la'yahay isla markaana dagaalku halkaasi ka sii socdo dagaalka u dhexeeya jabhadda ciise iyo samroonka waa lagu kala adkaan la'yahay iyadoona halkaasi ay ka dhasheen khasaare kala duwan isugu jirta dhimasho iyo dhaawac walaalaha ayaa si aad isku farsaaray bisha ramadaan ayaa fooda nagu soo haysa iyadoona dadka qaar ay sheegeen in xitaa la ixtiraam waayey bishii ramadaan oo fooda nagu soo hayso isla markaana loo baahnaa in muslimiinta iminka ay u diyaargaroobaan ee bishii barakaysaneed ee ramadaan laakiin aysan ahayn iminka waqti dagaal ee laba beelood oo walaalaha inay isku ruqaansamaan isla markaana isbaabi'iyaan iyadoo halkaasi aysan isku naxariisan iyagoo dhexdooda maadaama loo baahnaa xilligan inay tahay waqtigii nabadda isla markaana maadaama bisha barakaysan ee fooda nagu soo hayso isbuucan inay nasaan isla markaana dagaalada iyo colaadaha dib ay ugu dhacaan deetana ay heshiis nabadeed ay qaadaan cid wax laga dilana samirka ay qaadato iyadoona la sheegay in loo baahnaa xilligaana aysan ahayn xilli dagaal maadaama ramadaanka fooda nagu soo hayo waayahay waxaase wararka intaasi kusii darayaa in xaaladdu ay aad u culus tahay isla markaana aan la xaqiijin ilaa hadda waxa halkaasi ka socda laakiinse dhibaatadu ayaa sii badatay iyadoona labada dhinac uu soo gaaray khasaare kala duwan weliba aad u xoogan tanina waxaase la sheegay inay jab iyo dhibaatoba ay ku tahay labada dhinacba isla markaana la sheegay inaysan muhiim in maanta la dagaalmo dagaal culus ayaase ka dhex qarxay dhinaca kale oo deegaanka la yiraahdo oo wadaagta iyo si lamid ah samroon iyo ciise xaaladda ayaa degan inkastoo dagaalku oo 4 aag oo ka dhacay ee khasaare dhimasho iyo dhaawac labada maleeshiya beeleedyo ayaa u sababay iyadoo la sheegay in iyagu ay sabab u ahaayeen in dagaalku halkaasi ka qarxo ciidanka militariga ee kuwa dowladda Soomaaliland ayaa la sheegay in deegaanka iyagu ay gacanta ku hayaan laakiinse iyagu laftirkoodii ay xakameyn kareen dagaalka halkaasi ka socda isla markaana la sheegay ciidanka dowladda Soomaaliland in halkaasi ay isaga carreen degmada Jidhe ayaa la isku hayaa halkaasina waa meesha maanta ku bilowday ee mar kale dagaalka xilli shalay uu qarxay dagaalkii u dhaxeeyay Heemaal uu ka qarxay ciidanka Gadabuursaha iyo beesha Ciise maanta si dagaalku uu sii faafay isla markaana wuxuu sababayaa khasaare aad u xoogan iyadoo wali ay sii socdaan ee khasaaraha ee la isku baabeenayo ciidanka dowladda iyo kuwa Soomaaliland ciidanka dowladda Iraahda iyo kuwa Ciisaha iyo Gadabuursaha khasaaraha ayaa wali isa soo taraya war rasmi ah ilaa hadda kama soo bixin oo halkaasi ka dhacay dagaalku waxaa la sheegaa inuu yeeshay wajiyo aad u tiro badan waxaana muuqata in shirqoole kala duwan ee lala maagan yahay ee beesha Gadabuurse waa sida ay daabacayso mid ka mid ah warbaahinada ee halkaasi ka howlgala si kastaba ahaatee beelaha Gadabuurse ayaa muujiyay isku duubni iyo awood ay iskaga riixeen weeraradii iyo jabhadii soo duushay waxaana la sheegay in dagaalku ku fiday 4 goobood oo kala duwan isla markaana uu yeeshay dhimasho iyo dhaawac tir badan ciidankii baabaco ee beesha Ciise oo ku soo duulay deegaanada ayaa la sheegay in qaar badan laga dilay qaarna la dhaawacay waa sida qaar ka mid ah reerka Gadabuursa ay ku baahiyeen ay ku faafiyeen ay qoraalkaasi ee baraha bulshada iyagoo sheegaya in ciidanka beesha Ciise jug culus ay gaartay dhinaca kale waxaa lagu sheegay in jabhadda beesha Ciise ay weerar ku soo qaaday ee deegaanada beelaha Gadabuurse dagaalkan oo saaka bilaabmay ayaa wali socda jabhadda Ciisaha ee ku soo duushay wadamada jaarka ee Djibouti iyo Ethiopia ayaa jabisay xabad joojin ay dhawaan ka saxiixday xukuumadda Soomaaliland maalintii shalay ayuunba ahayd markii ay weerarkan la mid ah soo qaadeen jabhadaasi oo kaasi ay kala kulmeen jab xoogan inay meedadkooda ka yaacaan sidii caadada u ahayd kanina waa qoraal kale oo lagu faafiyay baraha bulshada samarkaale la sheegayo in ciidanka beesha Ciise jab la gaarsiiyay laakiinse ma ahan war xaqiiqa oo inagu halkaan aynu ku faafinay samarkaana cadeen sal iyo raad uusan lahayn way warkaasi waayahay aynu gudagalno xaaladda ayaa gabi ahaanba cakiran iyadoo dhammaan deegaanada idin soo sheegaba ay yihiin kuwa sida si aad iyo aad la isku farsaaray samarkaana
dhibaato xoogan ay ku hayso dadka deegaanka. arrimahaasi ayaa la sheegay inay aad uga cabanayaan dadka deegaanka iyadoo dhib xoogan ay kala kulmeen dhibaatooyinkii kasoo gaadhay ee dagaaladii ee muddooyinkii hore oo socdeen. inkastoo la saxiixay heshiis oo garwadeen uu ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland ee Sandheere, haddana mar kalese xaaladda ayaa ku xun ee deegaanada islamarkaana uu dagaalka ayaa weli sii socda. lama oga khasaaraha rasmiga halkaasi ka dhashay, laakiin dhimashada iyo dhaawaca intii hore iyo dagaaladii hore ay sii socdeen waa ay kasii tirbadan yihiin. waayahay dagaalka ayaa faraha kasii baxaya islamarkaana aada u sii xoogeysay. markaasi waxaa suuragal ah in ciidanka Jabuuti laftirkoodii ay soo fargelayaan islamarkaana toos ay ku soo galaan dagaalka. ayaa iyaduna la sheegayaa in suuragal ay noqon karto ciidanka Jabuuti inay soo fargelayaan iyo kuwa Somaliland oo doonaya in dhexdhexaadin rasmi ah la gaaro. haddii Somaliland ay ogolaadaan ciidanka Jabuuti in xuduudda ay soo dhaafaan islamarkaana halkaasi ay ka fuliyaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga, maadaama madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele uu kasoo jeedo reerka Ciise iminka Samroowka dagaalka adag uu kala dhaxeeyo, tanina la suuragelinayo in uu yahay Ismaaciil Cumar Geele qofka kale dejin kara xaaladda gobolka, isagoona la sheegay reerkiisa ay yihiin kuwa dagaalamaya iminka. dhinaca kale waxaa la sheegayaa jabhadda beesha Ciise ayaa weli lagu soo daadguraynayaa deegaano hoos yimaada ee Seelac. ogaaska beesha Ciise ayaa isaguna ayaa horay dagaal u cilaamiyay. xaaladda ayaa ku socota deegaanka oo xoog leh, mar kalena suuragal ay tahay in dagaalka intaasi uu kasii ballaadho islamarkaana uu dhaliyo khasaare aad u xoogan oo dhimashada iyo dhaawac intaas ay kasii tirbadnaa karaan, iyadoona burbur hantiyadeed oo halkaasi uu ka dhashay, dhaqaalo xoogan oo halkaasi ku burburay. dagaalku ay sii xoogeysanayaa, hub isku aruursigii ayaa socda. arrimaha ugu muhiimsan waxaa qayb ka ah in ilaa hadda lala yaaban yahay islamarkaana wax suuragal ay la noqon weysay ciidanka dowladda Somaliland in hubka la isku adeegsanayo ay yihiin hubab aad u culus kuwa dowladda ay adeegsan lahayd. waxaase lala yaaban yahay halka ay ka keeneen labada dhinac hubkan. warar kala duwan aan la xaqiijin karin iyaguna waxay sheegayaan in hubka ay ka soo galeen dhinaca Jabuuti iyo si lamid ah Ethiopia. waxaase la sheegaa in colaadahan ay ka qayb qaadanayaan dadyow kale islamarkaana ay Ethiopia qayb ay ka tahay gadaal ay ka riixiyaan in halkaasi ay sii socoto colaada, iyadoona lagu saleynayo in deegaanada intiisa kale nabad ay ahaadaan. tanana la sheegay in lagu carqaladeynayo ammaanka Somaliland. dagaalka ayaa aad sii xoogeysay, iyadoona suuragal ay noqon karto in intaas ay kasii badan karto, ugu dambeyntiina toos ugu qarxa guud ahaan deegaanada Somaliland goob kastoo ay degaan reeraha Ciise iyo Samroonka. dagaalkana intaasi uu kasii fido, iyadoona uu khasaaro intaas ay kasii badnaan karto. xilliga waxaa nagu fooda nagu soo haysaa bishii barakeysaneed ee Ramadaan, ayaase tahay xilliga dagaalka adag uu socdo u dhexeeya ee labada beelood ee walaalaha, loona baahnaa in imika ay qaboojiyaan ee dagaalka islamarkaana xal waara ay ka gaaraan ee labada beelood ee walaalaha. colaadaha ayaa aad u sii tirbatay, iyadoona loo baahnaa in xal waara laga gaaro. tanina waxaa lagu eedeynayaa dowladda Somaliland inaysan ka qayb qaadan kaalin mug leh xalkii oo muddooyinkaas soo socdayna ay ka shaqeyn weysay xalinta khilaafaadka labada beelood ee walaalaha, islamarkaana loo baahnaa in si ahamiyad gaar leh oo xooga ay u saarto ayna ka shaqeyso nabadeynta beelaha walaalaha. in colaadan aysan ahaan mid sii socota ayaase weli ay adag tahay xaaladdu, islamarkaana dagaaladu faraha ayay kasii baxeen, iyadoona khasaaraha imika uu sii tirbatay. waayahay daawadayaal, dhinaca kale warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dhinaca dowladda Somaliland, iyaguna sheegaysa in ay ka shaqeynayso inay doonayso mar kale in colaadda ay qaboojiso, iyadoo xilli saaka ciidamadii isfarsaaray Gadabuursaha halkaasi u dirtay. ciidankaasi ayaa la sheegay in loo diyaariyay inay ka shaqeeyaan nabadeynta, laakiin iyagu laftirkooda ay jihada ay ku wareereen maadaama rasaaso meel ay ka timid meel kale aan la kala garan waayay. ayaa la sheegay in iyagu ay goob banaan ay ka taageen islamarkaana kor kala socdaan ee dagaalada iyagoo daawinaya. sida muuqaal aad ka aragteen, muuqaaladaasi kuwa badan ayay kasoo duubayaan ee furinta ee dagaalka u dhexeeya Ciise iyo Gadabuursaha, iyagoo ku faafinaya baraha bulshada. waa sida laga dheehan karo muuqaalka iyagoo ku dhex hadlaya ciidamada dowladda Somaliland. waxaase xaqiijinaya in ciidanka Somaliland ay yihiin tuutaha militariga ayay sitaan. kaamiradaasi waxay qabanayaan ciidan tuutaysan islamarkaana ku tuutaysan, ayna sitaan qalabka iyo tuutaha ee militariga ee dowladda Somaliland, kuwaasi loo diray inay dhexdhexaadiyaan islamarkaana ay ka shaqeeyaan nabadeynta. laakiin
iyagu laftirkooda mar kale ay ku guuleysan waayeen. haddaba maxaa la gudboon ee dowladda Soomaaliland inay qabato arrimahani dhacdooyinkani ee dagaalka halkaasi ka jira maxaase looga baahan yahay dowladda Soomaaliland inay ka shaqeyso ma wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa sii huriyay colaada mise Cabdiraxmaan Ciro ayaa doonayay in xal waara laga gaaro oo doonayo beesha ciise halkaasi uu ka tirtiro gabihaanba maxayse tahay mise dowladda Soomaaliland ayaa ka qayb qaadanaysa horinta colaada midab miyay ku sii shidaysaa oo ciisaha iyo gudbuursaa miyay doonaysaa inay islaayaan maadaama Samaroon ay doonayaan obdaleseed oo ciisaha uu doonayo gobnaseed dhexdooda miyay dowladda Soomaaliland ka shaqeynaysaa waa arin kale mudan in la isweydiiyo arrimahaasi iyo kuwa kale ayaa halka idinku faahfaahin doonaa waqti dhow haduu ay beenan raali uu ka noqdo wararkaasi waxaanu baahin doonaa dhammaan wixii warar oo xaqiiqo ku saleysan oo deegaanada Soomaaliland ee dagaalada imika ka socda iyo si lamid ah xaalad kasta iyo warar kasta ka soo dhaca ee gobolka iyadoona aan xooga saari doono xaqiijinta wararkaasi iyo kuwa kale iyo si lamid ah wixii war oo run ah oo dhac iyo cadeymahoodii ayaynu halkan ku baahin doonaa daawadayaal.